بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. مدحوينها جمهورية سوماليلاند مدن مسبح عبدي marti sharafta faraha badan leh dadweyne iyo dawladba ka socda, waalidiinta iyo qaraabada ardada sanadkan kala jabinaysa, saraakiisha iyo madaxda waaxyaha kala duwan ee jaamacadda Camuud. mudane madaxweyne, waxaan idinku soo dhaweynaynaa qalin jabintii 19aad ee jaamacadda Camuud oo maanta halkan ka dhacaysa. kalaaska 2022 oo yaan kugu dhaweynaynaa. waxaan aad iyo aad ugu hambalyaynayaa kalaaskaa baxaya, waalidiintooda iyo qaraabadooda oo intaa ku soo tabcayay. ardaydu waqti badan, qaarkood waqti badan bay ku jireen halkan. qolada ugu yari madaxweyne waa 2 sano oo diblooma ah, qolada ugu badanina waa 10 sano ayay Camuud fadhiyeen. waa qolada dhakhaatiirta family medicine oo 7 sano oo dhakhtarnimo iyo 3 sano oo takhasusa ayay ku jireen. waa muddo ilmihii maanta markuu halkan soo galeen dee waa ninka ordayo ama waa standard 7 ama waa standard 8 meelaha. waalidiinta halkan soo fadhida iyo waalidiintiina ka maqan halkanba, inta ka maqaniba maanta waalidiinta dareenkooga iyo waalidiinta ilmahoogii uu Mediterranean Sea kolba dhinac u wareeyo doonid yar la socdo waa kala jaar, waa kala dareen. kuwaana waan u ducaynaynaa, idinkana waan idinku hambalyaynaynaa, waan idin ducaynaynaa. waxaa kala hambalyaynayaa kulliyadaha iyo iskuuladii soo saaray ardaydan oo muddada dheer ku soo tabcayay, wasaaradda waxbarashada oo qaranka u qaabilsan tababarka bani aadamka. mudane madaxweyne, qoladan ujeeddada halkan aan u nimi ma aha Camuud University halkan meel madal siyaasadeed ma aha, bolisiga guud ee qarankood laga hadla mooye meel axsaabtiiya wada murmaan ma aha. waa meel aynu u nimi qolo waliba waxay ducaysaa markay maxsuulkeegu hesho inaynu maxsuulkeenni waa basharka aan tababarray maanta, inaan u sii ducayno, inaan hambalyayno, inaan la dardaaranno tallaabada ugu xigta ama waxbarasho ama nolosha kolbata ay noqoto. ardada maanta qalin jabinaysaa waa 945 oo ka kooban 137 digriga labaad ah ee masters degree oo campuska Camuud Boorama iyo campuska Hargeysa oo ardadu kaga badan tahay ah, iyo 808 arday oo digriga koobaad iyo diblomayaashooda oo sidaas masters degree. master of family medicine waa dhakhaatiirta aan sheegayo, waa dhakhaatiir tababaran. digriga family medicine Maraykan baa ku caam yahay, adduunka waa ku caam. waa takhasus dhow 2 maado ama 3 ku takhasusayo. maanta degmooyinka Somaliland mid aan dhakhtarkaasi joogin ma jiro. Dr. Wahda shalay ii sheegayay dhakhtar werwer jooga ayaa arrimaha oo family medicine ka tirsanaa ayaa igala tashanaya arrimo xaggaas surgery ku taabsan. degmo aanay joogin maanta ma jiro. waa alxamdulillah. tiradoodu waa 4 dhakhtar. waxa ku xiga health professionals in education waa 4 iyaguna. waxa weeye markay dhakhtar dhamaystaan ayaa 2 sano oo kale iyaguna. ninka dhakhtarkiihi waxa la soo baray dhakhtarnimo, macallinnimo lama barin. ninka waxaan dhahnaa qofku waa qualified, macnaha aqoontii buu leeyahay maadada, laakiin waa trained. waxaad ugu dari kartaa oo qura marka waxbarashada kulliyadda waxbarashada soo maro ee loo dhiga methodology iyo qiimaynta ardayga iyo hadduu macallin noqonayo. nimankaasina waxay barteen sida wax loo dhigo medical educationka ardayga loo qiimeeyo koorsiyada oo waxa siisa jaamacadda London, University of London. masters degree ba imaka iyaguna dhamaysteen waa 4. master of research and data analysis waa 24. master of public health in nutrition waa iyaguna 12. master of public health in epidemiology waa 9.
master of project planning and management waa 25 maaliyadda iyo accounting xisaabaadka iyo lacagta iyaguna waa 25 master of climate change and environment waa cimilada isbedelaysa master planning and policy وافر هذا undergraduate ama digriga hore waa 42 tiradoodu qolada beeraha iyo deegaanka businessku waa 160 jaamacadaha dalka businesskaasa ku badan computer science waa 114 dentistry ama ilkaha dhakhaatiirta ilkuhu waa 36 economics ama dhaqaaluhu waa 25 waxbarashada macallimiinta la tababaray waa 73 engineerku ama engineerku waa 8 medical laboratory technology waa 55 qaanuunka shariicada iyo qaanuunku waa 43 dhakhaatiirta caadiga ah heerka koowaad waa 23 umulisayaashu waa 22 nersinku waa 50 pharmacology waa 39 public health waa 5 diploma in project management waa 2 diploma in education waa 3 tiradii waa 900 madaxweyne sanadkii dhaweeyay hogay baan qorsaysanay sidii aan berigi hore idin sheegnay intaasaan noo qorsaa badankoodii way noo hirgaleen intii aan iska hawlihii badankoodii way dhamaateen mid waataynu hadda ka soo sheekaysanay aad soo furtay inkastoo aanan kelidaya lahayn magaaladu nala leedahay waa bridge-ka haddana saameyn weyn ayay ku yeelatay jaamacadda Camuud waata halkii site-kii idinku jaamacaddu ay wadadii hadda aad furtay oo Umaani u dhisay lafteeda inaan dhisanay wadadaasi waxay $65,000 jaamacaddu waxay bixisay 35 kalena waxa naga bixiyay Telesom aad waxa ka warqabtaan jaamacaddu dhulkeeda mustaqbalka in waxaanu samaynay kaabado 1 mitir ah 10 jaamacaddu lagu wareejiyay lacagtana aad kal hore ay ku jirtay laba meel baa waa murama tiraynaa intaana weliba beriga waxaa halkan fadhiya wasiir cali marreexaan cali maxamed xasan oo beriga shaqo weyn la qabtay oo tiimkii noo soo diray intayna la sameeyeen GPS iyada lafteeda halkii ay GPS marisay baalkaana la geliyay maantana wasiir fiican uu jooga hawlaha guud oo isbeddelba meelo yar yar oo dad isku haysan iyada lafteeda waxaa noogu jiray social centerkii ka hadli maayo hadda soo furtay oo aan idiin sheegay in waxa la yidhi Soomaalidu ninkii kaba ka tolanaysa kabiisa la eegay injineeradii tababariyay injineeradan marta ragga tababaraysan bal waan ku kalsoonaanaynaa bal idinku aqal ka dhisa horta jaamacadda kulliyadda injineerada jaamacadda dhisay oo associate deanka yaa hormoodka ahaa injineerka ahaa mees waxa kale oo noo hirgalay jaamacaddu ceel biyay lahayd way ballaaratay dhulkiina inaan ballaadhinaan rabnaayo kulliyadda beeruhu ay wax soo saar gasho researchna gasho ceel labaad baa la noo dhisay hay'adan Kuwait oo Relief International ay noo dhiseen aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa dhinaca waxbarashada academiga waxa weeye dabcan waxayna saameeyay dalka oo dhanba corona ina saameeyay qaabkii yar bedelay si dhaqso ah bay Camuud ugu tallaabsatay in fact aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya divisionka academiga ee vice president Maxamed Muuse Jibriil iyo hormoodiyadiisa iyo macallimiintaba in si waqti yar oo kooban ay isbeddelka ku haleeleen oo markii tababar la siiyay in cashiradii waqtigoogii lagu dhameeyo imtixaankii ugu dambeeyay markii xayiraadii dalka laga qaadayna ay imtixaanadii finalka u galeen sidoodii caadiga ahayd waxa kale oo iyadna loo kordhay in kulliyadaha caafimaadka oo 6 ah oo principalkoogii uu fadhiyo Dr. Walhad in sanadka iyaguna ay hawlahoogii sidii u socdeen tababaradii ay sidii ugu socdeen xaafadii ay tagi jireen ay awalba
iyaga iyo isku xidhnaayeen qoysaska dalka Soomaaliland ay halkii sidii loo tegi jiray qoladii xagga maskaxda iyo dhimarkana ay in badan wax weyn ka qabteen runtii oo dad badan oo markii hore xidhnaa guryaha lagu xidhay ay maanta shaqaysanayaan iyadoo tababarkaasi wax weyn daweyntaasi wax weyn runtii u tartay waxa kale oo iyaduna noo hirgalay in online oo aan ka baranay koronihii tan haddaan tijaabinay undergraduate-kii in aan bilownay koorsyo online oo master's degree oo geeska Afrika inta halkan ka timaado dhulkay ka yimaadeen oo dhan laga geli karo diiwaangelinteedina ay maanta socoto oo khibrad wanaagsan aan ka helay saamaynta salbiga ay nagu yeeshay runtii dhibtu keenay koronuhu dhib weyna ma aha laakiin waxoogay hakada ku jiray xidhiirkii dabadeen la isu talaabi jiray ama scholarships ahaa ama booqashooyin haween naga yar xidhmay waxaase jiray bil ka hor koronaha inaan wafdi u diray dalka India si aan xidhiir ugu soo samaysano jaamacadooga malaha maalintii lagu dhawaaqay koronaha maalintii ku xigtay ka soo baxeen India waa bay naga xalib gaadheen marka 4 jaamacadood ayay la soo saxdeen jaamacadda Usmaniya la yiraahdo oo ku taal Hyderabad heshiiska waa kala soo saxanay jaamacadda Sharda oo Delhi ku taal gabigeeduna caafimaad ay tahay oo aan rabno in ay kulliyadahana ka dhigaan isbitaalka la hayaad ee jaamacadda hoos yimaadana iyadana in halka daaweynaan u keeno jaamacadda Andhra Pradesh Andhra University iyo Keith University iyo center la yiraahdo ICAR oo India waxa la waxa beeraha jaamacaduhu ay ku bahoobeen annagana ay naga qayb galinayaan oo aanu ceelkan labaad ee jaamacadda loo qoday inaan rabno in jaamacadda wixii inta bari ka xiga oo dhan ee dhirta leh inaan beero waaweyn ka dhigno oo research cilmi baarista jaamacadda ee beeraha iyo wax soo saarkaba inta ka dhigno sida qolada Kuwait-na la yar tartamno oo de wixii ka soo baxa caasimadda Hargeysa u iibgeyno si dakhliga jaamacadda uga soo saarnaa annaga lafteeda oo kulliyadaas ay jaamacadda ku bilaato waa intii aanu fulinay horta adduunyaduna wada laami maaha challenge way iska jiraan caqabada naga hor yimid waa ay jiraan oo markii horena of course qaar ku talagalay qaar aan ku talagalin koronaha saa ka mid ahaa waxa ka mid ahaa oo capacity aynu waxoogay yar ku qasamayn lahayd xagga dabadda xidhiidhka naga jiray waxa jira dhulkii oo weli murama meel ka taagan yahay waad iska garan kartaan malaha idaacadaad ka maqashaane kaan meel isqabanayo wuxuu dhadaan ninkaas dhul boobay Soomaalidu ma taqaanay institutions boogtay jaamacadda Camuud ma dacweeyaan Somaliland madaxweynaha marka la hadlayana wasaaradda dawladda ma dacweeyaan madaxweynaha ku boodaan halkana gudoomiyuhu bay ku soo boodaan waad ka maqashaan inta dhul buu naga boobay iyo agoon baa halkeer lahayd iyo agoon dhul ma lahayd waa bulcad dhuleed horta nimanka imika waqtigan joogay runtii marka dhinac ka eegto waa buurahaas lagu oranayo waa beer badankoodii waan kala baxnay intii kalena maxkamadaha noo hiiliyay runtii oo aan noo eexan laakiin cadaalad uun sugay campuska intuu ahaan jiray weliba ma ahee intii aan ugu nimi inta kalena insha Allah waa dhamaystirayna waxaan aad iyo aad kale oo iyadan nagu yar ah in expansion aan u baahanahay kulleyba in xaqii facilities ay naga soo yaraanayaan waxyaabo badan baa iska jira dalka oo hawlahooga waxbarashada bahda waxbarashada ka tirsanahay talooyin baanu inta isdhaafsanaa waxa loo baahan yahay inaynu kolka dib u eegno aynu tayadii jaamacadaha kor u xasiisayno wasiirkana waa fadhiyaa in kormeerka la badiyo bariyo dhaweyta waxaan soo qolaan suuqa u diray halkan iyo Hargeysa baan warbal meelaha qaarkood soo hubiya master's degree baan bixinaa ardadina meelaha ka timaado in degree-ga hore wada sax yahay waxa noo soo baxday in meelaha qaarkood degree-ga lagu bixiyo 2 sano lagu bixiyo course-kana lagu dhameeyo meelaha qaarkood 14 cisho course-ka 14 cisho lagu dhameeyo waa ka halkan aan ku qaadana 4 bilood iyo badh marka la yiraahdo 1 credit hour waxa weeye saacad maalin la qaadanayo weegalba walba mar 4 bilood iyo badh lagu qaadanayo ay credit hour tahay marka course lagu dhameeyo 14 cisho ma shaqeynaya aqoontii waa la yar ribay waa la yar afduubayaa taana inaynu u fiirsano inspection skill la qaado hal la mudeeyo waqti degree-ga koobaad waa in sare ee business-ku waa in standard laga wada dhigaa bahal midna aanu 2 sano ku dhamayn midna 4 ku dhamayn nursing 4 jaamacadood
جامعة عمود جامعة هرقيسة جامعة أدنى هي جامعة النقال أي تنبر علينا كتبته واسكو منهج وأفر سنة كانت فرش ما نكون بانو دير راي أفر تاسنا وحي كي روا مصبت وأم الاستئية النيرس لكم أصلا ساري كرو سيدي طبعا بالوضع لكم سوى سارة ديجري نيرسنجا ما شغينا ستاسرة وين employment كلا قلت قال ما إن منهج في ستاندرد في أي دولة تدجسي هدان الراعين إن أنا شقين إن أنا شقاد أولا ترتمي كلام كوا كله مركا إن وهكلون دعوة جماعة لكن ما هنقول لك اللي هي الدولة إن أهير جريسو أي دردر جريسو كمشين كي تعليم سري جهدي وين بان نجا قالي أنا جايجن العقب أنا وصل قاعد إذا مركي السامي سرع جامعات وسامي وين إنسبكشن كي يكون صون نقدان وجامعاتي أنا جيب عطسان إن إلا نكرميره ولا بوجينا فرع تاسع دول دكتور إنتاج نواسدي حسن النية كليدة مش غينيسو ثانا جينتا وسوق عبني أمان وهذا الكاي ووقتي غير هاجي وهنون سنة كسوس إن شاء الله أنت أنك قارنو إن أي نبرنامج يدا أنت أنتر جراجويت بوست جراجويت كبا أنا أبديت كرينو أقوانت أنا إنه هالكن كبرنا القرآن وكلام معها وارون كل ميل قاعدة وذرون شوكتا معها كتاب كإله يصنعهم بارون شوكتا مركا كل ما من با أبد أودر فليت نقول إنه عسبوني سينو غيبة كم إذا كريكولوم كريفيو كرينو إن graduation hall كان واضح أكتر مركا ويصور كل هذا إن أما كان لو تبى برسي سولا ديسو أما كان لبلاريو لما ذا سأقول منكم أنا أقول إيمان إن شاء الله وهكذا نوتشر إيادنا كل يدا بيرها إنه واتن هذا يدي شيء إنه بيرها كدقنا إن هذانا online programs كان كدينه إن أنه فاسيلز كشان عدا هل بلوكو lecture halls ما دام إمكا بريس كيلا دسي حصته مقالة اللي بقولي هل كانوا يسووريان إن بالميلان غرغر كرادين بتاعنا دسو وحيقول تنبيه نود of thanks إن أنهم هذا عليو إدي كان عدا وحقة قصتي الرئيسية تنبيه سبع إلهي بينو فدودي بعد الله dadkii ugu horeeyay bariga hore fikrada keenan labadii sano u horeeyay waxay u badnaayeen jaamacadu dadkuna ma badnaayeen oo shaqaalaha iyagu dhowr iyo 30 bay ahaayeen gurba jooga dibadda ee reer awdal badan yihiin baa runtii si joogta ah mushahar yar kooban u bixin jiray saddexdaa sano u horeeyay ka bacdi waxay saarayd gudaha ha u badnaato hargeysa oo afkoos ahayd xaruntii dawladda iyo hay'adihiiba leh iyo hooyigan jaamacadda lafteeda oo aan maanta madaxweynaha horteeda ku amaanayo 350 sano shaqaynayay tiimka amuujo intaana waxbarashaan ku jiray tiimka amuujoga maanta tiim ka fiican lama soo shaqayn waan markaati furayaa runtii mishaarkooga wari 320 sano jaamacaddu jirtay intii bariga nala bilowday inta kolba dhexda ku soo biireysay mishaarka mar quraan yar ku dhinay oo boqolkiiba 10 ama 15 mid ahayd mooyaane ku daray hortooda iyadoo lacag yar inoo soo hadhay ayaan choice siinay oo nidhi $100,000 baa idin soo hadhay miyaan idin ku dhinnaa santarka inoo ku dhisaan la yidhi biidnillah marka dad sacrifice badan samaynaya runtii aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa xukuumadda Somaliland kuwa hore dawladdii ugu horreysay soo gaarnay Allah u naxariistay ee jaamacadda la furay dawladdii waxay ahayd madaxda ka ah maxamed xaaji ibrahim cigaal maanta maalinta ilaa maanta kamay lugta kamay qaadana wixii kolba tamarteeda ah way nagu taageertaa waliha reer awdal waxaan u sheegi daaraha faraha badan lee dhaadheer la dhisayo hal mid magaalada shaqo bildinga caafimaad ka mid ah inta kale dawladdu gacan bay ku lahayd meelaanu sanno ay soo shaxaadno oo ku niraado sabay u tagno hada warqad ka soo qaada wasaaradda ama dawladda oo taageerada oo ah ama iyada toos u gelisa qaarkood ama mashruucaanu soo helay baa la nagu taageeray oo ku helay ma wada ahan wax boorama laga wada alifay ma jaamacad waa jaamacad oo runtii shaqadeeduna tahay heer qaran tahay maalgelinteeduna heer qaran tahay ardada ku jirtana ay Somaliland iyo Soomaalida geeska Afrika oo dhan ka jiraan wax aad iyo aad
ugu mahad celinaynaa dowladda dhexe shirkadaha ninka walada la yidhahdo hay-adaha UNDP iyo EU-da iyaga laftooda waxa weyn banala qabteen Food Foundation hay-adda la yidhaahdo oo gobollada Soomaalida oo dhan ka qayb gashay Somaliland ku jirto oo runtii taqulena kaga hadhaya qurba joogii oo meel walba joogta iyaguna isbitaalka Al-Hayaatna waa nagu taageereen ka hawlgalay inta kale dhamaystirayno meelo kale oo dalkana ay wax ka qabteen iyagana waanu mahad celinaynaa waxaan aad iyo aad State iyo King's College oo ilaa imika wada shaqaynana waanu mahad celinaynaa waxaan codsanayaa ardayda qalin jabinaysa inay daqiiqad istaag بسم الله الرحمن الرحيم iyada oo wax waliba ay ku suura galaan ogolaanshaha ilaahay oo aanay suura galin wax ilaahay aanu ogolayn aan la samayn karin anigoo tixraacaya qodobka artikalka 15 ee dastuurka Somaliland oo jideynaya qaabka iyo cidii u xilsaaran waxbarashada anigoo tixraacaya charterka Amoud University oo sanadka jaamacadda u ogolaanaya inay sameeyaan departments iyo divisions iyo institutes iyo inay shahaadooyin bixiyaan ilaa heer PhD aniga oo tixraacaya reportka ay hormuudyadiinu soo qoreen inaa buuxiseen shuruudihii laydinka baahnaa ee muqarrarkiina ama curriculumka idinku jiray iyada oo la tixgelinayo reportka uu soo qoray chief registrarka jaamacaddu oo isna marag furayo anigoo tixraacaya warqadu 2 cisho ka hor soo qoray vice president ama gudoomiyaha jaamacadda arrimaha waxbarashada oo isla arrinta uu cadeynayo waxay jaamacadda Amoud ka marag furaysaa in shahaadooyinka qaadateen ee la xidhiidha takhasusiyadiina iyo heerar sharciya in aad sifa sharciya u haysataan oo leedku wareejiyo taasaka ka qalin jabiseen jaamacadda Amoud ayaanu idin marag furaynaa jaamac shahaadooyinku waajibaadna way leeyihiin wa xuquuqna way leeyihiin waajibaadka shahaadadu ay leedahay idinka ayaa la idinka rabaa madaxweynaha hortiisa qaranku uu idinku soo tababaray xuquuqda ku leeyihiin qaranka ku leeyihiin oo madaxweynuhu wakiilka yahay dardaaran waa soo dhamaysanay sanado badan baad nala joogteen kala duwan waxa dambe isuu keenano badan ma jiray waxaan idin lahaa saaka oo kaliya ilaahay ku xidhnaado intaan noo sheegay wareegtooyinka ilaahay fuliya haddaydan fulin wareegtooyinka ilaahay awaamirta ilaahay wax inoo soconaya ma jiro qaran iyo qabiil meel ma wada galaan waa cudur iyo daw meel ma wada galaan intiina halkaa joogta cidna looma soo balin reebelnimo waalidkiin iyo annaga oo cashuurtiinii laga bixiyo ayaa idin baray ma aha ilaa intaad noolaydeen ilaa wax la soo bareeyeen tiina iyo tii qaranku baa la idinku baray nin reebel loogu soo baray wax ma jira ama gabadh iyo wiil midnaba looma soo barin marka idinkuna model u noqdo waa ogeydeen Amoud markaa timaadeen ama intii aan la joogteen maydaan arag cid qabiil ku dhaadanaysa cid idinka eexanaysa cid isku leynaysa qabiil cid ku dhaaganaysa waxba maydaan maqal bari ma qolada kafto waxa uu jaamacadda Amoud waa marmar ban masaajidada ku yeedhownaho imaamku markuu yiraahdo masaajidka istawu markuu yiraahdo reebel sabka hore ku jira ma yiraahdo anana waa noo sidaa halkaas istawudaasay noogu joogtaa annagana marka waxa tani saddexaad waxbarasho maanta kuma dhamaan waxbarasho maanta kuma dhamaan waxa dhici karta ama ay u egtahay maanta inay idin bilaabateen maanta waxa garanaysaan sida cilmiga u baadhaan runtii beenta kala soocin kartaan hays dhiganina noloshiina qorshaysta ama shaqo markaad heshaan iyo haddaad waxbarasho ku dhisataanba noloshiina dib u qoraysa qodobka igu dambeeya maanta laga bilaabo markaad ka baxdaan halka danjirayaasha Amoud University baati haddii aad ku noqda kuwa la mahadiyo oo leedahay halkee ka soo baxeen ducaqabayaashani aan leedahay war ku ayaa soo diray la oranay model fiican inoo noqda waana waa fadhiisan kartaan mudana madaxweyne reportkii jaamacadda isagoo intaa ku dhan jaamacadda waxa soo gaarayay 23 sano heer waxaan gaadhay kolka aan u baahanahay in aan yar nasto
cibaadadii ilaahay yar fara qoyskii iyo carruurtii iyo reerihiina u yar madax bannaanaado somalilandna wixii ay iga baahatee kale aan noqdo oo oday somaliland ahoo ka howlgala kolba wixii inoo dana madaxweynaha maalmo wuxuu igool gaftami jiray camuud miyaana soo dhaafayn boqolka halkaasaad waxaagay ku dhamay marka in la galo fikirkii ibedeli lahaa korka oo transition noqda oo muddo ah ma odhanaya saakaa tegayahay laakiin halkii waxaan gaadhay runtii ya kolka meel fiican baan soo gaadhsiinay aniga iyo waa mahadsantiin aniga saaxiibada meel fiican baan soo gaadhsiinay hadda tadanba wax badan lama qabto ciradan baan kula hor joogaa dad badan baan aqaanaaye mar shaqada qabtaa way yartaa waxoogay hogaaminaya talun baa bixiyaa maalmaha qaarkood markaan ka maqanahay camuud iyadoo kaba sii fiicnaatay sidii horaan ogaa taasina waa iga arrin yar oo shaksiya biidni illahu dee waa joogaa waynu wada sheekana insha allah madaxweyne reportka waa naga intaas waayahay